ka codsanahay wixii oo maaragtay arko wiilkaas tilmaamahaas la si islaamnimo ama muslimaan waxaan uga codsanahay inay ku soo xiriiriyaan lambarada oo maaragtay shaashada la saari doono ama saaran hadaba baafintan waa degdeg waxaan waliba codsanayaa anagoo codsiga hooyo macaan tixgelinayno ninkan meesha lagu arko si degdeg ah in gacanta loogu qabto waa xanuun badan tahay 22 jir dhalinyaro ah wiil ah xanuunsanaya marka gacantaada uu ka baxo waliba khamiistii ilaa iyo hadda nooli geer laguma sheego hooyo waa la sirayaa dad baa dhibaayo lacageen meel hebel oo jooga intay ka baxday waana beentood annaga marka aan garab istaagno oo caawino oo ugu yaraan muuqaalkan meel fog aan u gaarsiino intaad qabataan meel walba geeya haddii sawirada wiilkan la aqoonsado si gacanta loogu soo dhigo hooyo loola soo xiriiriyo uurkeeda iyo qalbigeedana uu qaboobo waa mahadsantahay العاصمة هوسبيتال waxaa ka howlgala Dr. Haytham Ahmed Abuud oo loo aqoonsaday dhakhtarka ugu wanaagsan ee daweynta dhalmalaanta. Dhakhtarku waxa uu sameeyaa qalliimada burooyinka minka, furista tubooyinka ugxaanta, dayactirka dabaca kaadi haysta dumarka, fiiro gaara dhammaan qalliimadu waa laser. salaamullaahi calaykum saaxiibayaal soo dhawaada waa mar kale iyo barnaamijkii baafinta baadigoobka ummadda Soomaaliyeed ee Ilintir anigu Cabdilcasiis adiguna waxaa tahay saaxiibka la jira jooga muuqaalada shargareeya meel badan gaarsiiya ilinta ka tira waalidiinta muuqaalka inta qabata meel fog gaarsii Facebook aan ugu soo biir YouTube subscribe leh aadaan ugu faraxsanahay inaad qayb ka noqoto dadka ugu xiran hooyo soo dhawo marka hore magacaaga dhameystiran iyo halka aad naga soo booqatay dhakhtarka lafaha ee isbitaalka xamar waxa uu ka daweynaya lafaha seedaha iyo margiyada ma isku aragtaa kala goosiyo xanuun sida jilbaha xusullada kala goosyada gacmaha anqowyada kala goosyada cagaha sidoo kale ma isku aragtaa xanuun murqaha ah xanuun seedaha ah iyo xanuun margiyada ah ee faahfaahina naga soo wac nambarada shaashada kaaga muuqda waxaan dhawahay magaceygana waa Xabiib Xasan Kulane xabiib maadaama wajiga ku xiran yahay codkaaga kor u qaad waxaa marti ku tahay barnaamijka baafinta baadigoobka ummadda Soomaaliyeed Ilintir intee naga soo booqatay waxaan iga soo booqday degmada Dayniile gaar ahaan Isa Cabdi yaa kaa maqan oo aad raadinaysay oo aad u timid barnaamijka baafinta waxaa iga maqan wiil xanuunsan oo sanadiisu tahay 22 sano dhinaca bidix oo dhacsan yahay lagu yaqaan ma hadlaayo hadalkiisu ma maqan yahay subaxii khamiista aan ugu war dambeysay 12 wiilka magaciisa noo sheeg marka hore wiilka magaciisa waxa la yiraahdaa Cabdullaahi Maxamed Ismaan Faarax Cabdullaahi Maxamed Ismaan Faarax magacaas markii loogu yeero ma isku yaqaanaa haye asbis isku yaqaanaa ma kala malahan oo ma dadka dagaalama ma qof iska habiyo socda ma hadda ma dagaalamo anaga san ku ogeyn hadoo yahay ma dagaalamo iska miskiin oo iska aamusan oo hay tigid ku iman jirin tataga oo soo majabaxso soo wareereego iman jiray qadar Allah maalintii khamiista subaxda 12 oo baxay soo wareega ma doonayaan sida la isku lahayn ilaa 4 saac la soo xawaalay abis ma noolyahay abis laakiin gobol jira waayahay xaafadda hadda wiilku uu ka lumay ma xaafad laga yaqiino macruuf ka ahaaba mise xaafadu ku cusub yahay macruuf ku ahay la wuxuu joogay 3 sano oo joogay 2 sano oo caafimaad qabo joogay hal sano oo xanuunsan oo joogay hal sano 3 bilood oo xanuunsan yahay taroog ayaa ku dhacay dhinaca ayaa dhacsan ma hadlaayo kulay gurigana uu noo joogi jiray islaam wuxuu la jiray dadiis oo aabihiis la dhalatay markii khamiistii dhumay ilaa khamiistii waa la raadinay ana arkay hal mar qoftii hal mar ma baadi goobteen oo ma raadiseen bismillah maalintii oo dhumay ilaa hadda ma la fariisanaan ku dhax hal mar xataa aniga arkay xataa qof dhahda ma arkay maxaa maqasheen marka oo macnaha qabara akhbaara dadku maxay dileeyeen maya qof walbo oo la weydiiyo maya la ku dhahaysaa marka ma garanayo ilaah baa ku cilmi meesha ku jiro sawir iyo wax laga haayo wiilka ma jiraan sawir hadda markuu baxay
oo saacadaas oo baxay sawir laga hayo ma jiro laakiin sawirkiisa hore la hayaa sawirkaa shad saari doonaa dadkuna way kaala soo xiriiri doonaan oo isaga ayaan jeclaan lahayn in ciddii aqoonsato wiilku ay soo qabato wiilkaaga haddii la weydiiyo taleefanka hooyadii ama aabihii ma sheegayo hadlaayo hadday hadlaysa waxbay sheegtaa mogta hadlaayo waayahay soomaali qabiilku ka ahaa mursadaba mursado waa laakiin wuu yaqaanaa haddii inuu mursado yahay wuu yahay masi Wallahi isagu waa shib wuu aaminsan yahaan ku dhahday ma hadlaayo wax ka hadal xunnahay. ma hayo. horay ma u lumay oo hore ma loo waayay maya mana lumi jirin mana bixi jirin guriga caadi u joogi jira xanuunka wiilkaaga haya ee maaragtay hadda uu la maqan yahay goormuu ku bilowda xanuunkan hada 2023 bishii 12aad mise 12 ahayd ma aqaano oo ku dhacay stroke waxa la dhahayo kulay lugiga gacana dhaceen lugiga gacana ka dhacsan anta bidix iyo lugta bidix isxiga waaye wajiyada lugta wax tabara ma lahan gacantana saan waaye dan xoogaa waa magaciisa marka loogu celi magaciisa waa Cabdullaahi Maxamed Ismaan Faarax meeqa sano jir waa sano 22 sano jir waa muuqaal ahaan marka la fiirinayo muu egyahay maya waa caatay waa qaliir dhuuban oo wajigiisa xoogaa waji dhuuban san dheer qal caato waaye ma aha nin oo maaragtay la isdhahayo 22 sano jira wiilkaaga hooyo ciddii aqoonsata amba meel ku aragtay maxaad ka codsan lahayd waxaan ka codsan lahaa wixii oo maaragtay arko wiilkaas tilmaamahaas la si islaamnimo ama muslimaan waxaan uga codsanahay inay kusoo xiriiriyaan lambarada oo maaragtay shaashada la saari doono ama saaran haddaba si degdeg inay kugu qabtaan jeclaan lahayd ay maaragtay si ixsaan ay ugu soo hagaan dadka lambarada waayo hooyo lambarka shaashada aan kugu qorayno cidda wiilkaaga aragta inta qabata ay kaala soo xiriiri lahayd bal noo sheeg 6 waaye fura 6 waaye 97 97 69 67 77 77 marka lagu celi furaha waxaa waaye 6 6 97 97 69 69 77 adaa wata lambarkaas anaa wataha hooyo lambarkaasa lagaa soo wacaa isagaa lagaa caawinaa marar qaar waxaa kusoo wacaya dad been kuu sheegayo waan aragnay Tuuga. halabaanay nagu dhacday ha waxaa kugu filan smartphone isaa la wataa waa la horumaray kaamirada fur wiilkayga tus inaad tirahdid intaasaan sameynaynaa haddii lagu tusiyo markaas wax walba kala xaajo kartaa sax waa ya wax kaloo aad noo sheegayso oo wiilkaaga ku saabsan hooyo ma jiraan may culayska noogu badan oo na haysta waxaa waaye maqnaashadiisa kaloo xanuunkiisa qadarulaahi ku imaadeen laakiin hadda culayska noogu badan oo na haysta waxaa waaye xanuunkaas maqnaashadiisa waxaan rajaynaynaa in la helo dadka Soomaaliyeed ay ku caawiyaan wiilkaagii muuqiisa meesha uu ku dambeeyay xogtiisa beenillah alkariim insha Allah aad oo maasta hooyo adigana qalbiga wanaaji una duceey Allah fuuday insha Allah mahadsan tahay guud ahaan muuqaalka intaan jeclaan kusoo gabagabeeyo ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu noo suuro geliyo yoolka riyada rajada hadafka aan leenahay qalbiyo faraxsan qoys midaysan maalintii yawmul qiyaamana jannatul firdaws ilaahay inuu nageeyo aniga adiga sida dadka Soomaaliyeed aan u caawinayno u garab taaganahay gurmad iyo gargaar aan ugu fidinayno waad ku mahadsantahay daawashadaada